ay ku filaatano ciid idin dhashoose ya iga dhamaada calad baateen calad kalan laaray intaas ay ku filaatano ciid idin dhashoose ya iga dhamaada calad baateen calad kalan laaray السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلك أدنى جلسة وسرقات تي في fanaanada caanka ah farxiyo kabeer ayaa guursatay Nigerian oo magaciisu yahay Tony Gambosa waxaana guurkaas ka carooday Soomaalida ku dhaqan wadanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis. haddaba intaan u gelgelin qisadan xiisaha badan hadday tahay booqashadii koowaad ee janaalkeena fadlan ha ilaabi inaad subscribe saarto. fanaanada caanka ah farxiyo kabeer ayaa guursatay guur sharci darro ah Nigerian oo magaciisu yahay Tony Gambosa waxaana guurkaas ka carooday Soomaalida ku dhaqan wadanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis. farxiyo kabeer ayaa ugu jawaabtay dadkii ka carooday guurkeedii haba ugu tiro badnaadaan Soomaalida qaab aan anshax ahayn oo caay aflagaado iskugu jirta waxayna tahay sidatan intaas ay ku filaatano ciid idin dhashoose ya iga dhamaada calad baateen calad kalan laaray intaas ay ku filaatano ciid idin dhashoose ya iga dhamaada calad baateen calad kalan laaray. guurka farxiyo kabeer waxaa fadwo ka soo saaray culamaa diinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis walow ay farxiyo ka dhaga adeegtay fadwadaasi ay ka soo gudbiyeen guurkeeda. dad aan ku kalsoonahay ee ku nool magaalada ay ku nooshahay farxiyo ayaa inoo xaqiijiyay wiilkeedii curadka ahaa inuu ka carooday guurka hooyadiisa ay guursatay ninka Nigerianka ah waxaana laga yaabaa wiilkaas inuu iskaga tago guriga hooyadiis. haddaba dad badan ayaa waxay isweydiinayaan su'aalo fara badan ay ka mid tahay maxay farxiyo u guursatay ninka Nigerianka ayadoo heli karta wiil Soomaaliyeed ay isfahmayaan dhaqan iyo afba. haddaba jawaabta waatan Tony waa milyaneer u dhashay dalka Nigeria wuxuuna u ballan qaaday kadib guurka markii uu guursato farxiyo kabeer inuu siin doono lacag $250,000 oo dollarka Mareykanka ah. farxiyo oo ka faa'iideysanaysa jaaniskaas ayaana guursatay ninka Nigerianka ah. sidoo kale lacagtaas faraha badan waxaa farxiyo u dheer hadday caruur u dhashay ninka Nigerianka ah inay heli doonto hadiyado iyo lacag fara badan oo u ballan qaaday ninkan. farxiyo mar la weydiiyay sababta ay u guursan weysay nin Soomaaliya ayaa waxay ku jawaabtay inay guurar hore oo Soomaaliya soo martay ayna ku fashilantay sidaa awgeed ay soo tijaabinayso nimanka ajaanibta ah iyadoona sidoo kale aflagaadaysan nimankii hore u guursaday ee Soomaalida ahaa waxayna ku tilmaamtay kuwa dumarka garaaca aanan waxba ka aqoon sariirta iyo raaxada. dad badan jooji waa caay laakiin waa caay run aya caay sax ah waay natiijo qarmuunka nin ragan ku moodee hadda ninka noocaas oo waxaas laga sheegayaba ah haddaan la caayina la amaani lahay waa caay sax ah cayduna waa caay sax ah nimankii loogu talagalayana loo qaadaa hadday yihiin kuwa vacation marriage ku sameeya dumarka oo intay Afrika iyo meelahaas kale tagaan gabdhaha vacation marriage ku sameeya ilmaha ku soo raree meelahooda isaga noqda oo biilka ka jarta iyo kuwa qurbaha ku silciyay oo haddana ka dhamaanayn ee saas gabdhaha ugu dulmeeraysto please yahow nabadgeli oo ilmahayga ii dhaaf. farxiyo kabeer waxaa wax laga weydiiyay xiriirka jacayl oo soo bandhigtay saaxiibkeedii dalmaryar oo ay Soomaalida dhan og yihiin inay isku qabi jireen qaab qodbasira ah walow ay ka gaagaabtay haddana waxay uga jawaabtay sida tan nin walaalo camal aheedeen oo good friend kula ahaa muddo isaga jooga iska soo jaro abaay hey I want to be with you so kuma qoslays. oh my god yeah I want to be with you sida la isaga jooga masaka jeclaale camal al taagay ma fahamteen ya ma fiicno qofka hadduu walaalka dhigto nin kuma arkaayo ninkuna hadduu walaalka dhigto naa kuma arkaayo intaas aqaana mugto laakiin sida ninka isaga jooga hadduu ku dhaho walaalo u tiin good friend u tiino ya aad qof wax isla cun aleediin uu yahayo walaalka camal de ya close friend kuga ah sida la isaga jooga calaska dha abayo he waxaan rabaa inaan ku sheegay I want to be with you marka asxaabay nimanka Soomaalida waa la tu'aamin walaal ma galaan ina abti ina aydi ma galaan cousin ma galaan ninka soo ilaa ninka adi walaalaha ka dhigayso oo iska ilaashaha marka ugu dambaysa iska soo jiraa I want to be with you adigana already walaalaha ka dhigata ninba mu aragtid calashaan naag waxa leeyahay inay taqaanaan nin mu aragto ya anigana dhaqan waxaan baleeyahay qofka marka hore walaaltinimo iyo friends ahaan isku barano
oo aan walaal ka dhigto subxaanallah nin hadduu ka soo haro ya shuqli shaqa aan ku leeyahay iska yar marka nimanka Soomaalida ka sheekeeya gabdho I want to be with you alas ka soo tira haddaba daawade adiga maxay kula tahay inay gabdhaha Soomaaliyeed guursadaan ragga Nigerianka ama ajaanibta ah adigu sama guursan lahayd nin ajaaniba ama gabar ajaaniba